wafdi ka socda midowga Yurub iyo dalka UK ayaa kulan saacada qaatay waxay xarunta xisbiga mucaaradka u cid ee magaalada Hargeysa kula qaateen xisbiyada mucaaradka kulankan oo warbaahintu dibad joog ka ahayd markii uu soo dhamaaday waxa ka warbixiyay xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka u cid Sheekh Ibrahim iyo xogayaha guud ee xisbiga wadani Khadar Xuseen Cabdi Looge bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu saaka kulan la yeelanay wadamada daneeya arrimaha Soomaaliland doorashooyinkana inaga taageera runtii labada xisbi ee mucaaradkiiba ay kulan wada jira la yeesheen kulankaasi si fiican ayuu u dhacay oo ku soo dhamaaday waxaana runtii aan uga waranay maanta xaaladda aynu ku jirnay doorashooyinka waxaan u sheegnay in xisbiyada mucaaradkii ay diyaar u yihiin maanta oo ay bishu tahay 26 waxa halkan ugu yimid international community-ga daneeyaasha doorashooyinka Soomaaliland xarunta ayay noogu yimaadeen xisbiga wicid maanta oo kula kulanay labada xisbi waxaanu ka wada hadlaynay laba qodob ayaa ugu muhiimsanaa qodobka koowaad waxa weeye in ay doorashada madaxtooyada Soomaaliland ay dhammaystiran tahay oo xeerarkeedii qawaaniinteeda ay dhammaystiran yihiin doorashooyinka kale ka dambeeyana wixii ka qabiya insha Allah la dhammaystiro annaguna aanu diyaar u nahay labada xisbi hadaanu nahay in ayna waxba naga qabiyahayn oo diyaar u nahay qodobkaas uu ahaa qodobka kalena waxa weeye sidii wixii ku dhinaa iyagu xagga dhaqaalaha ay naga taageeri jireen insha Allah ay soo dhamaystiraan ayakuna insha Allah way ballan qaadeen wixii xagga ka qabiyaa inay soo dhamaystirayaan labada qodob baa ugu muhiimsanaa marka tan doorashada madaxtooyada waa u dhammaystiran tahay xeer 14/2011 si cad buu u qeexayaa doorashada madaxtooyadu inay ana waxba ka dhinay guurtida iyo urradana diyaar baa loo yahay insha Allah anaguna diyaar baan xaggayaga Axmed Saki Ibrahim telefishinka CBA Hargeysa